arrintii maxkamadda tagtay soo ma caliyo dowladii Kenya maxkamadda tagtay dowladda Kenya warqad la soo baxday dhahdo federal markii iyo maxaan ku haystaa wasaas moogtay hadaan telefoonka ka iibiyo oo deeq darajo ku qabsado waa laga iibsado warqad la soo bixiyay marka dowladii Kenya waxa uu iibinay lama imaan meeshii labo xilaalihii qaranka arrinta gacanta ku hayeen hadda in taalana loo dhiso oo dadka Soomaaliyeed u sheegay badbaadada aan badbaadinay badda Soomaaliyeed oo yaradii meesha tagani markii dowladda Kenya ku dooday war anaga de maxkamadda waa laga horeeyaa wada xaala ka horeeya waxa lagu yiri hadalkii waa soo dhamaaday dowladii tan ka horeysay aleen waxa geeyay dowladda dacwada waxa geeyay Xasan Sheekh dowladiisii yaa wada hadalkii in la soo dhameeyay la yiri waa qolada kaliya ka soo afxirtay meesha ay ahayd laakiin mid dadka inay ogaadaan way Kenya badda waan ka dhignaa anaga 2005 ay jeexatay 2005 ay jeexatay hada ay leedahay oo dhulkeeni ah ay ku soo xadgudubtay علي هذول نيش هاتي كوق قبصدني لا بقى كوفرن هرت إنه كسوها ويسكرين بقى أو كوق قبسكرين بقى هكذا سومال مركز متجوجين سومال شاتي كذا حلو قبسكري جوكتي هدي إنه وقف سنة أنا ترى ورولاد وشاتي أنا أسكالها وقف سنين أو هدي مرة ما بين أدون كي دتك لساري جري لو قربكتو أنت سبحان حين ما جرتو مركب دعايات لكن مين أكون شيء دتك سوماليات أنت دعاية يود بود أنا ونسكع فيه مركب وقاعدين وحلاليه هذلي oo maxkamadii loo yaradii hadleen oo arintii cadaatay oo dowladii Kenya ay weysay waxay ku marsiyoto alla hadii bad laga galo waxay dhigeen moogta waan ka galay maxaan ku haystaa ceebteena soo bixi lahayd waxaan gadnaak imaalaha wixii dana banaanka dowladda Kenya banaanka soo dhigtay ahayd wixii markay dhici waayeen dad wali sii wada hadda ninka asagoo og xaq og wixii ogaaday ay iyo dacaayad sii wadaanade kaasde aniga ilaahay asiga aan kala harayna laakiin intii qaldaneed ku qaldaneed dad badan oo Soomaali soo cudur daartay dad badan oo Soomaaliya ayaa afis iga dalbado iska cafi kuwa hadda aan soo gaari waayeen waa biga afisba laakiin maqaarkiga waa adag yahay 10 sano oo soo adkaysataas waxaan u aqaanaa markii character assassination in dadka laga dilo sumcadda markii sumcadda ka dilo in anagoo nool dilaaba timidba waxa badan ku dilo waxaan rabnaa dawladdu inay taagnaato dawladda aniga waxay ii tahay institutionka madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo laba ii kala xukuumadda iyo ra'iisul khayraha laba ii kala baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka mursal maxamed sheekh laba ii kala yihiin aniga waxa ii kala saaran ashqaasta iyo institutionka annaga institutionka inay dawladaha hay'adaha dawliga ah inay dhismaan Soomaali dhan way rabtaan hal qol kaliya diidan waa al-shabaab inta kale waxa la isku raacsan inay jiraan dadka hogaaminaya marka hay'adahaas wuxuu ku hogaaminaa siyaasada ayaga ay leeyihiin aragti ayaga ay leeyihiin aragtidaas aan ugu dhalinsanahay si u dhaliili kartid wax kama sheegi kartid in la dhaxane hadda waa qalad sababtoo aragtidaas aan aragti ka duwan yaan qaba dadkiina dad individual oo shakhsi oo naseexo si hoose loogu sheegayo naseexada sharciga islaamka iyo ka ilbaxnimada waxay qabtaa marka qof si private oo hadlaysan si private la qofka dad public yahay oo xafiis public yimid هذا أساس هو دون تشغلها وإنسب أنا نفتي ولا دليلا ولا دليلا وحل يغشها because أنا صوت دون تي إلى أو ببلغي يمد قفكي ببلغي ما مركب وأنا تمرت يدي دلقات كذا يشا هدي كون حفيد يسجو